salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo ixtiraamka inaga mudan oo caalamka meel walba oo aad ka joogtaan iyo xilli walba oo idiin tahayba waqtiga ha idiin wacnaado waayahan ha idiin sabaado waa walaalkiin cabdiwahaab oo idinle maalin kale iyo muuqaal hor leh salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo ixtiraamka inaga mudan oo caalamka meel walba oo aad ka joogtaan iyo xilli walba oo idiin tahayba waqtiga ha idiin wacnaado waayahan ha idiin sabaado waa walaalkiin cabdiwahaab oo idinle maalin kale iyo muuqaal hor leh aad baad ugu mahadsantihiin ka madaxashiyaha janalka iyo sida aad ugu xirantihiin oo aad inoo taageertaan intaba waan idinkaga mahad celinayaa guul iyo sharaf iyo cizi ku noolaada meel walba oo aad ku sugan tihiin waxaana mar walba aynu saaxiib ku nahay samaha haddii aad janalka ku cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay aad nala kulantana subscribe saar kambaleelka furo fiidiyoga like gareeya siina share gareeya oo meel weyn gaarsiiya waxaana mar walbaba aynu wadaagi doonaa waxyaabaha ugu dambeeyay ama runtii markaasi aan u arki karayo ama muuqaalka ani isoo jiito oo aan rabo in aan idinla wadaago sida ay anigu ugu qancayna aad ugu qanci doontaan aan hubo markii walba waxaan idinla wadaagaan waxaan jecelahay sida dadka iskugu xiran yihiin in aan markaas wax idinkaga yiraahdo ama idinkaga sheego mar walbaba taas ayaanu jeclahay waynu ahaan doonaa sida aynu nahay marka waxaanu doonayaa muuqaalka maanta waxa uu yahay waa Saalax Sanaag oo Maxamed Maama yacni hadalkiisa soo hadal qaaday sida uu soo hadal qaaday iyo waxa uu ku taageeray ayaan doonayaa horta marka ugu horeysa inaan soo daawano wixii aan ka dhihi doonana waynu ka dhihi doonaa ee bal daawasho wacan dhammaantiin weydii salaamay waxaan si khaas ah u salaamayaa bulshooyinka ku dhaqan gobolka Banaadir gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaa habeen dambe caways aad u qurux badan ku leh hotelka Elite walaalkay Maxamed Cumar Saalax Maxamed Maame habeen dambe cawayskaas ay noo balana ka soo qaybgal wanaagsan postcard-kana waa idiin soo dhigaya halkaas kala xiriireysaan insha Allah aad baan idiin salaamayaa sida ay soo aragteen Maxamed Maami waa fanaan runtii ay aad u jecel yihiin maalmahan aad ugu arkayseen isagoo saadi sharaf iyo waqti la qaadanayo oo xaraabeesi ku jiro maanta Maxamed Maami waxa uu markaasi diyaar u yahay ama uu u diyaar garoobaya inuu caawa Elliot hotelka la yiraahdo oo aad wada taqaanaan reer Muqdisho oo dhan ay wada og yihiin inuu show ku qabto waxaana doonayaa in ninkaasi waxa uu idin leeyahay walaalkeen waa in isaga la garab istaago oo la dhiirigeliyo runtii dadka anaga waxay noo yihiin fanaaniinta anaga waxay noo yihiin youtuberada anaga waxay noo yihiin inaan fahnaa horta marka ugu horeyso wax walba ka qiimo badan waxa arkayo kala Cali Zaki oo taageerayo habeenkan waxa lagu kulmiyay dad waaweyn waxa joogan Elliot dad waaweyn Qamar Suugaani kamid ah xitaa odagu ay soo keeneen Zakariya Kubciya kamid ah shaadi sharaf iyo isaga afarta weeyaan waana taqaani waa meeshii lugaha cagaha amaba biyaha la gashanayo waaye waa meeshii uu qadarkayo wacdaraha ka dhiga amaba bilaabayba hawshan oo biyo gashayga lugaha isaga ayaa bilowgeedii hore u ahaa runtii hubqa ninka ugu horeeyay oo markaas bilaabo ayuu ahaa waxaynu dad badan aanu aragnay iyadoo markaas showga uu noqday mid caalami ah amaba hotelkaas Elliot biyahaasi oo ka noqday mid caan ah dadka intooda badan laakiin waa yaqaanaan oo qof loo sheegayo malahan maanta waxaan idin leeyahay odaga hala taageero hadaba fanaaniinta markaasi ku sugan waxa jirto fanaaniin marka meesha lagu garan jiray dadka qaar waxay soo galiyeen fanaaniinta meesha lagu yaqaan maxaa ugu wacan weyday oo marka ay kaga mid noqon waayeen ama ay ugu mid noqon waayeen ay leeyihiin barnaamijka meesha ka socdo ama showga uu qabsanayo Maami maxay iyaga uga mid noqon waayeen ayaa arkay iyadoo su'aal meesha ku qoran taa waa inta sababta u soo qaatay waa taa iyagoo markaasi aan dareemi karo inay ula jeedaan ninka odaga ay qadarkayo meesha kuma jiro ama dadka markaasi barnaamijkan loogu talagalay ama diyaarsaday kama mid ahaan qadarkayo oo ka maqan yahay oo afar fanaan oo kale ayaa ku jirto waxaan doonayaa horta in arrinka yiraahdo dadka inta badan komitiyada qorayo waxa ay abuurayaan baas abuur iyo xaalad abuur weeyaan waxaad ogaataa hadii mar walbaba aad qof arki jirtay qofkaas waa weyn kartaa ma ahan inay jiraan dhibaatooyin runtii markaasi oo qofka ku iimaan kari waay ayaa dhici karto laakiin ma jirto dhibaato kale ama khilaaf kale u dhaxeeyo Maami wax yar oo jooga magaalada inta kale fanaaniintan waa fanaaniin aan wada naqaano oo sida ninka odaga ahaa ee Qamar Suugaani inta aan nooleen wali maynan arag isagoo fanaan is haysta
haystaan ama isagoo qof oo fanaan ah ay isku dhagan yihiin midda labaad ninka odaga ahaa kale Zakariya Kobciyana ma ahan ba isagana qof lagu yaqaano buuqbuuqa iyo dhibaatada iyo in markaas ay qof iska daba jiitamayaan ma ahan qof lagu yaqaano inta badan waynu ognahay waxa uu kamid yahay fanaaniinta ugu degan runtii inta aan aqaano hadda maanta aan dhihi karo waa fanaaniin dadka ugu degan ayuu kamid yahay oo aan leeyahay xitaa waxa uu kamid yahay fanaaniinta aanan inta badan social media ba lagu aragba oo hadii maanta la isweydiiyo waxa laga yaabaa aragtidiisa inay kugu dambeysay goor hore laakiin fankiisa aad u wada jecelnahay oo aan ku raaxaysano heesaha oo markaasi u qaado marka qofka kale ee hadal hayaan ama ma ay raadinayaan marka ama ay hadalka ay ka raadinayaan waxa ay tahay Shaadiyo oo markaasi iyada aan ognahay xogaa khilaafa inuu bari jiray khilaafna muu ahayn laakiin waxa uu iska ahaa un hadal oo markaasi ay dadka si xun ay u dhigeen waxay markaasi ay ka dambeeyay markii la isku arkaba waxyaabaha ay markaas soo hadal qaadayaan waxa uu ahaa marka khilaafka oo mar soo kala dhaxgalay iyada iyo qadar oo codad markaasi inta badan la yiri maba ahaynba wax sax ah oo waxa uu ahaa codad oo been abuur ah oo la isku keenay ayay marka meelaha la ordi jireen oo iyada fanaanada iyo fanaanka ay sharafkoodii dhulka lagu dhigayay waqtigaasna waan ogeyn xaaladaha iyo marxaladaha adag ee markaasi fanaanada ay la kulantay laakiin waxaan u qiray inay tahay gabar aad u geesi ah aad ay gees u tahay Shaadi Sharaf sida loo mareynayo kun jeer ayay ka geesisan tahay war xaaladaha qaar hadii ay fanaaniinta qaar ku dhacaan waxa laga yaabaa stress dartiis inay isdaldali lahaayeen ama isdabi lahaayeen laakiin fanaanadan iyo fanaanada kale ee Safiya Tusmo waa labada fanaan ee kaliya aan siiyay in ay yihiin fanaaniinta Soomaalida hablahooda ugu adkaysiga iyo geesinimada badan geesi markii aad maqashid ma ahan mid dagaal un ha kula ordin geesinimada lagu sheegayo waxa ay tahay in wixii aad la kulantid aynan kugu yeelan kareenin saameyn aad u culus ama aysan ku gaarsiin kareenin heer aad naftaadii xitaa aad markaasi qancin kar weedo runtii waa geesiyad intaasi waxaan u soo hadal qaatay qofka loo jeeday ama qoraalkaasi ku socday meeshaas ayay ahayd sida aan fahmi karayo laakiin waxaan idin leeyahay mar walba waxa aad ogaataan fanaaniintiina idinka ayay fanaaniin idin yihiin idinka ayay wax idinku yihiin idinka ayay wax idin yihiin hadii aad fanaankaaga iyo dadkaaga kor u qaadan weydo qof ku qaadayso oo Ilaahay abuuray ma jirto hadii aad caydidna adiga ayaa is caayay oo markaasi waxaynu ognahay fanaaniin hadda fara badan oo waxa jiraan marka kor u qaadna aan dareenay in hadii aan kor isku qaadna anaga kor tagi karno waxa kamid ah Sharma Boy maanta meesha uu taagan yahay waa aragtay waxa soo qaataan ajnabiga soo qaataan dad ajaanib ah soo qaataan heesiisa marka waxaad ogaataan hadii aynu anagu kor isku qaadno kor tageena oo hadii aynu hoos isku dhignana hoos ayaan ahaan doonaa guul walba oo qof Soomaali oo gaarana waa gaartay marka taasi maskaxdiina iimaankiina mar walba u sheegay fanaaniinta la taageero dadkiina caankana hala taageero si idinka adduunyada kula tartantaan mideeda kale Saalax Sanaag ninka la dhahayo anu waa wataa Saalax Sanaag waxaan ku arkay dhowr jeer fanaaniin xitaa oo ka maqan hadda oo Cabdirkariin Cali Shaah kamid yahay isagoo Ingiriiska joogo oo ololeenayo oo la reer England iyo reer UK ama reer London showga ninkaas ha loo sharaxo marka saas dhahayo isaga ma ahan inuu fanaaniinta waqtigaasi oo showga joogay oo kamid yahay waa uu ka maqnaa mana joogin laakiin saas ee taa waxa uu u muujinayay inuu garab taagan yahay oo walaalkii oo yaani u yahay walaal ama garab oo u yahay mar walba waxaan leeyahay marka Saalax nin rageed weeyaan waa nin runtii aad u jecel fanaaniinta khayr ee walaalihiis ah aadna u taageero waxaan rajeynayaa mar walba in aynu istaageerno mid labaadna maami haloo kala kiciyo reer Muqdisho caawa showgaasi hal kala kiciyo oo hal muujiyo in ay markaasi gob loo soo martiyay waxaan rajeynayaa inaan mar walba aan markaasi isgarab istaagi doono oo aan isgarabin doono aad baad u maasantay reer Sariixad waxa idin la tahay inaad nala wadaagi doontaan inta aan muuqaalkan mid xig ku kulmi doono waxaan idinkaga sii tagayaa dhamaantiin nabaddiino